Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo in muddo ah saaxiibo ahaa ayaa hadda ku kala tagaya saaxadda siyaasadeed iyada oo Aadan Maxamed Nuur Madoobe uu garab istaagayo lafta gareen oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hadda qorsheynayo in gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka qabsado doorasho isaga uu gooni u yahay kadib markii uu isagana ka baxay garabka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee xasaasiga ahaa ee ku saabsanaa kala qoqobka iyo waliba kala tagista nidaamka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya saaxiibada ugu dhow ee Koonfur Galbeed uu ka leeyahay ee uu ugu horeeyo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. kadib xiisada ka dhalatay buurha kaba iyo waliba qansax dheere oo dagaal xoogan uu ku dhaxmarayo mucaaradka lafta gareen iyo waliba ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lafta gareen ka amar qaata. Haddaba haddii aad nagu cusub tahay muuqaalka like saar sii share garee oo channelka subscribe dheh hore haddii aad noola joogtin aad u mahadsantahay. aynu ku bilowno marka koowaad saaxiibayaal Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa markaan gabi ahaanba isaga baxay garabka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo madaxweynuhu ku eedeeyay in uu colaado iyo dagaalo kala duwan ka horinayo deegaanada uu ka soo jeedo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Koonfur Galbeed. sidoo kale waxaa kala dhaqaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh iyo waliba madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sheegay in ay isku qabteen deegaanada Koonfur Galbeed dagaalada ka soconaya oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku eedeeyay Aadan Madoobe in uu yahay qofka koowaad ee dagaalka ka horinaya halkaasi isaga oo ciidamo kala duwan geenaya. waxaa sidoo kale isku dhacay General Sulub iyo waliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo Xasan Sheekh Maxamuud la sheegay inuu ka hor istaagay ciidamo lagu waday in Sulub uu geeyo halkaasi hubna uu u daabulo maadaama xiisada ka taagan Koonfur Galbeed Soomaaliya ay cirka isku sii shareerayso. Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa isku haya Xasan Eelay oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba Cabdicasiis lafta gareen oo uu qayb ka yahay Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ah wasiirka diinta oo qaafta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo isagana la sheegayo in hub iyo ciidamo kala duwan uu geenayo gadaal uu ka riixayo dagaalada ka socda Koonfur Galbeed Soomaaliya. xiisada siyaasadeed ee dalka ayaa cirka isku sii shareeraysa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la gaaray ay leeyihiin dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda gabaldhaciisii nidaamka iyada oo markaan uu ka soo horjeesanayo gudoomiyihii dartiisa loogu yeeray Mr. Ansax oo wax walba uu madaxweynuhu geysto baarlamaanka uu ansixi jiray. haddii markaan Aadan Madoobe madaxweynuhu uu iska xallin waayo waxaa loo yaabaa nidaamkiisa in uu sii jiro maadaama Aadan Madoobe uu si cad u sheegay in uusan gorgortanka galaynin in colaado lagu horiyo deegaanada uu ka soo jeedo oo Koonfur Galbeed Soomaaliya ah. Cabdicasiis lafta gareen isaga ma uusan hambalyeenin dastuurkii uu ansixiyay Aadan Madoobe ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in uu dhameystirayo. taas ayaa waxaa keentay in la tuhumo si wada shaqeynta madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo waliba lafta gareen. ugu dambeyntii waxaa soo shacbaxday in madaxweynaha iyo waliba lafta gareen ay kala dhaqaaqeen siyaasadda oo uu lafta gareen markii uu cimrada ka soo laabto uu deegaanadaasi Koonfur Galbeed ka qabanayo doorasho dadban. waxaa sidoo kale lagu muransan yahay Galmudug oo iyadana aan soo hambalyeenin dastuurkii uu ansaxsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda ee khilaafka xoogan uu ka taagan yahay. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa weji kala yeelanaysa markii laga baxo bisha barakeysan ee Ramadaan. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah waa ay u dhakan yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. ciidamadii ugu badnaa ee mucaarad ah waxa ay joogaan qansax dheere buurha kaba iyo waliba deegaano ku dhow Koonfur Galbeed Soomaaliya iyada oo saanad iyo waliba hub ay halkaasi u daabuleen wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Eelay, Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur
iyo xildhibaan saddexaad oo ah Cabdirashiid Jile oo qayb ka ah xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka soo jeeda ee ciidamada kala duwan halkaasi u daabulaya sida wararku ay sheegayaan. Cabdicasiis Laftagareen hadda waxa uu diyaar garoobayaa dagaal xoogan oo uu la galo mucaaradkiisa halkaasi geenaya hubka iyo saanada military. dhowr mar oo kala duwan Cabdicasiis Laftagareen wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda u sheegay in uu bedelo xasan Eelaay oo ah wasiirka xanaanada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka dhaga adeegay waxaana taasi ay keentay in khilaaf halkaas uu ka dhasho dhinacyaduna ay kala dhaqaaqaan Laftagareenna uu aado doorasho dadban uu isaga qabsanayo taasoo keentay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu ka istaago sidoo kalena ciidamo halkaas u daabulo. xiisadda Koonfur Galbeed waa ay qasan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna dadaaladii ugu xooganaa ayuu wadaa uu halkaas ciidamo kala duwan ku geynayo xiisad colaadeedna halkaasi uga hurinayo sida wararku ay sheegayaan dadka siyaasiyiintana ay ku waramayaan. sida siyaasiyiintu ay sheegayaan dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay ku waramayaan. sidoo kale xogo xasaasi ah oo aan helayna ayaa waxa ay sheegayaan ciidankii weeraray guriga xasan Eelaay uu ka degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay in looga yeeray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka halkaasi oo su'aalo loogu weydiinayo sababaha ka dambeeyay in ay weeraraan guriga xasan Eelaay iyadoo wararku ay sheegayaan in saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi la soo taagayo maxkamad iyo weliba dablayaashii iyagu weerarka geysteen. xiisaddu cirka ayay isku sii shareeraysaa halkaasina xaalad adag ayaa ka taagan oo ay hanjabaad hawada isku marinayaan dadka ka soo kala jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin. waxaana wararka iyo xogaha ay sheegayaan in ay ku kala dhaqaaqeen xildhibaanada muxaafadka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud raacsan iyo weliba kuwa mucaaradka ah ee garabka Cabdicasiis Laftagareen is-hortaagay. shalay ayay ahayd markii degmada Qansax Dheere gabi ahaanba ay isaga baxeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasi u jooga oo ay aadeen ciidamada Itoobiyaanka ah ee halkaasi ku sugan degmadaasina ay gacanta ku dhigeen ciidamada badbaadada Koonfur Galbeed la magac baxay ee mucaaradku ay gadaal ka riixayaan oo ugu horeeyo xasan Eelaay, Sheekh Mukhtaar Roow, Cali Abu Mansuur iyo weliba dhinacyo kale oo halkaasi ciidamo iyo saanad military u daabulaya. buur hakaba iyadoo xiisadeeda waa ay taagan tahay. dhinacyada Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay wadaan dadaalo xoogan oo mar kale ay kulama kacleynayaan ama mar kale dagaalo xoogan ay ugu qaadayaan Qansax Dheere ciidamada ku sugnaa iyada oo kulamo xasaasi ah dhinacyada Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasi u jooga ay ka wadaan gudaha magaaladaasi Baydhabo si mar kale dagaal xoogan loogu qaado mucaaradka halkaasi qabsaday.